بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر أيام حشرني درسكم أنت وحكب الله ونيا آية أفريد تبنات آية كورسي آخر كذا وحليني والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هو لك سكو أدبر يساني توغ يساني حوب لفتميريد حوب كذا وحدا حتى مملكيان وحكا ليس كبرداف يجي بالغ سي هلا يا ولي إن تدعوهم هداد ويا دام رب سبحانه وتعالى لا يسمعوا ممقليان دعاءكم ويريدين ولو سمعوا هدي مقلان كبسوقات هدي مقل الحياة ما استجابوا مينا أجيبين لكم إذنك إذن مينا أجيبين ويوم القيامة ما ننت قيامتنا يكفرون وحيكو كفرنا بشرككم شرك جني وداجنتي الله وداجسين إلهي ذا كدغتين وديدي دونان ولا ينبئك كو ورم مايو مثل خبير كو حق اوغال مثل مده كو ورم مايو حق اوغال سيدو كوغو ورمو ميدان حق اوغال هيني كوغو ورم مايو waxaanaad alla ka soo caabudaysaan wax ka raadsanaysan ee baryeysaan ee tuugaysaan idinma maqlayaan barbilay subhanahu wa ta'ala maxay waa dhagaxyaan iyo geede iyo waxa iyagu qoreen jamaadaad maanta ornaadaad ku dhawaaqdo ku maqli maayo tayib hadii kaba soo qaade fardan lagaba dhigaba inay idin maqlaanna idin ma ajiibi karaan hatta dhaga ay idin ku maqlaan haday lahaan lahaayeen idin ma ajiibi karaan waxba idin kama qaban karaan codsigiin xaylay awood iyo tabar male sinaba marka dhawaaq maqli maayaan hadii sabab la yiraahdo way idin maqlayaan waxay gacan ku hayaan majlisaas daraadeed waxba kama qaban karaan codsigiina way macna mastajaabu lakum taasi waa adduunyada roob ma keenaan yaani wax weeyaan xoolo ma bixiyaan caafimaad ma bixiyaan waxba ma bixin karaan laana ma hayaan haday noqoto adduunba wax kaga matala gashin aakharaan ku tala gashanahayna wa yawmal qiyaamati yakfuruna bi shirkikum maalinta qiyaamada markii la tago way diidayaan isma naqaan idin dhahaya shirki iyo wadaajintii iyagii ilaahay aad wax ka dhaxaysiinayseen taa iyagaaba inkiri doono diidi doono macna waxaan u tagi doonaa wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirun وكانوا بعبادتهم كافرين يعني waxa weeyaan waxay u noqonayaan cadow cibaadadii ay caabudi jireen way inkirayaan way ku kufrinayaan waxa kale oo soo marnay kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alayhim didda cibaadadooda way ku kufrin doonaan lid bayna ku noqon doonaan rabbi subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamada wa kuwana ilayhi way noo shafeecayaan oo ilaahay baan u sii gaarsiinayaan oo waxani berrito wayba inkiri doonaan ninkaad ku tala gashanayd oo isku haleynaysi oo la soo istaagay warismaba garanaynaba isma naqaan soo dhibintiisa lagma aduguna aad ku tacab khasaarto adduunka dhan baraali gelintiisa oo aad ka shaqeynayso oo wax u raadsanayso macna tayib wala yunabbi'uka mithlu khabir waxa laga wada xog ogaal sida uu kuugu warramiyo xogtu ku siiyo mid isagoo kala mid aan xog ogaal ahayn kuma siin karo xog ogaal oo kale warku ku siiyay midaan xog lahayn kuma siin karay wuxuu leeyahay qatada waxa laga wada alla isaga laftiisa iska wada xogta ilaahay uu ku siinayo cid kale oo ka helaysa ma jiro taas oo yaa kaaga warrami kara qiyaamo waxa dhacay ya ma ilaahay ahayn baa ka warrami karaysa marka xogta ka qaado ilaahay ka qaado sideedaba marka doonayso inaad wax ogaato waxa aad doonayso inaad ogaato cidba ciday ugu xog ogaalsan tahay baa loo raadsadaa sooma
mid geel jira haddaad cilmiga dhakhtarnimada u raadsato soo dhib ah ama tiraahdo guryaha see loo dhisaayo injineeriyada iyo handasada aad weydiiso soo salibkeeda gaari maysa soo wadaad miskiin oo meel fadhiyo oo waxa weeye waxoogaagiisa isagu qaata oo iska danaysta shaqaba ay u noqotayba haddaad tiraahdo ilaahay cid aan ahayn ma la caabudi karaa war waa la caabudi karaa lacagta keen buu ku dhihi xoolaha keen soo walaa yunabbi'uka mithlu khabiir weeye allaha xogogaalkaabaa saa idinku warramaya wadaadda maxaad ka aadaysaan marka war wadaadow awliyada ma la bari karaa maxaad ka dooni xog uu haya wadaadka saas way macna marka ilaahayga xogogaalkaabaa inoo warramaya warkaa iyo xogtaa uu ina siinayana cid isagaan ahayn oo ina siin karta ma jirto macna saasuu qaataa la leeyahay in tadcuuhum haddii aad baridaan laa yasmacuu ma maqlayaan ducaa'akum baryadiinna ma maqlayaan walow samicuu hadday maqlaan kaba soo qaad way tanaazul way walow samicuu hadday maqli lahaayeen mastajaabuu maynan ajiibeen idin maynan ajiibeen lakum idinka idin maynan ajiibeen yani waxba kama qaban karaan wa yawma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yakfuruuna way kufrinayaan bishirkikum shirkigiinay ku kufrinayaan oo diidayaan walaa yunabbi'uka ku warrami maayo oo arrimaha cidhibtoodiiya waxay ku dambayn doonaan kaagama warrami karo mithlu khabiirin mid xogogaala mid la mid ah mithlu khabiirin mid xogogaal ah mid la mid oo xogogaala mooyaane sidaa wax kaloo kuugu warrami kara ma jira way macnaha يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس دضوا أنتم إذنكم الفقراء كوا باهم باتين إلى الله ألا كوا باهم باتين والله ألنا هو إسقى أي الغني مدك مرمى أو ديقتون الحميد إلا مهديه إن يشاء هدودونه يذهبكم وإذن تكسين أو يأتي الله إيمان بخلق أبور جديد أو عصب مخلوق عصب والله إيمان هدوره وما ذلك كاسنا ما أهانن على الله ألا كركيس بعزيز متكو عليك إلهكم أتك سبحانه وتعالى ولا تزير ما حنباريس وازيرة نفلي دنباتي ولا تزير ما حنبارته وازيرة مد دنب حنبارسني وزر أخرى متك للدنب جيدا ما حنبارته وإن تدعوها ضي يرته مثقلة مثل عسلي نفل عسلي هدي ويرت مثل ويرت إلى حملها رركذا أي سدو حقي سهدي ويرت عيسك أي حنبارسان دي هدي ترى هذا كان إلى قيبسه أو حقا قال لا يحمل حنبار ماي منه شيء حال وكميدي هي شيء لقى حنبار ماي يعني وح لقى حنباري أو شيء كميدي ما أوجره ولو كان هباء هذا متك ويرانيس نفتاسي ذا قربى مدوانشاء صاحبه قراء حقال كذا هذا إنما تنذر وأندقي نبيه الذين كوي ما أندقي يخشون بقى ربهم ربك كبقى بالغيب مقناشو حال أي كسوغيهين وهو أقاموا توسية الصلاة صلاة توسية ومن تزكى روحي إصطهرة فإنما يتزكون إصطهريا لنفسي نفتي سدرت الموس إصطهريا سقوم بيتاسي أصلا قوي معنا سياس كلام وإلى الله حق اللبنا المصير أهانشوه أهاني نقطك إيا أهانشوه حق اللوي سقال الله من يوم ورددوا إلهي بادو باهنتين أيضا واحد الماميسا سيدو إلهي سبحانه وتعالى خلقه سأقام مارمو إيا سيدي أقو باهيه ورددوا إذنك وحاتين كو إلهي أباهن إذنك إلهي أباهن البرقس إلهي كما مارنت سبحانه وتعالى يعني البرقس إلهي كما مارنت سبحانه وتعالى باهيدا هذا إلهي أضباهنتها وصفة ذاتية خلقك أردن صفة ذاتية أو أصل كوا أو إنك نحليه كريمي إن إلهي أباهين سبحانه وتعالى أما إلهي هأقلادين أو هقرين أم هديد سنادين لكن إني أباهين وأرن أين مرنا كدحبيه كرين البرقسنا كما مار مكان الله سبحانه وتعالى ساس معنا أما الله سبحانه وتعالى إسقى أيوحو يهي مدك ديقتون أو أن عدنا أباهنا شريتان كيسو خلقك أمباهنا خلقك شرين بو إلهي شري صوبا كان الله ولم يكن شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وو شري مرأة وح خلق أبا شرين با ساس خلقك ديبا لغا أبوري marka ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga qani ah idin ma baahna xamiid weeyo wala mahadiya oo mahad buu mudan yahay leeyahay
haddaad mahadisaan iyo haddaydaan mahadininba wuu mahadsan yahay. alxamiid way alla subxana wa tacaala. inuu idinka maarmo ayaa waxaa ku tusaya hadduu toono wuu idin baabi'ino wuu idin tagsiin. khalqi cusub iyo makhluuq cusubna wuu keensan oo idinkuba khalqi la baabi'iyey soo kama dambaysaan. idinkana ilaahay idinma baahno intuu idin baabi'iyo idin tagsiiyo kuwa cusub keensanay inuusan idin baahnayn bay marka ku tusay. uma baahna allah subxaana wa tacaala khalqigiisa inuu ilaahay idin tagsiiyo idin baabi'iyana kuwa kaleeto idinku soo bedeshana arrin ilaahay ku adag ma aha subxaana wa tacaala. naf dambaabtay oo dembigeedii xambaarsan mid kale dembigeeda ma xambaarto. ruux walba tiisa isagaa berrita xambaarsan doona. nafteediiba xambaarsan dembi aynan gelin inta taa laga soo qaada iyada la soo saari maayo. hadday dhacdana saan soo marnayba waa haddaad dembiga ay taasi gashay aad sabab u ahayd ama gacan ku lahayd. hade markaas adaa qayb ku leh. walayaxmilunna ahqaalan wa ahqaalan maca ahqaalihim waynagii soo marnay. markaasi sabab baad u tahay laakiin dembi aadan sababna ku lahayn mubaasharana ku lahayn oo naf kale gashay in dusha lagaa saarayo ma dhacayso. leanna waa dulmi. ilaahayna subxaana wa tacala dulmiga naftiisa waa ka xarimay. naf la cusleeyey oo dembigeedii xambaarsan oo culays saaran yahay rarkii saarnaa intay naf kale ugu yeedhato oo wax iga fududee tidhaahda ama ila qaad tidhaahdo yacni u imaan mayso oo ka qaadi mayso. haddii naf la cusleeyey ay u yeedhato oy mid kale u yeedhato culayskeedii inay la wadaagto rarkii saarnaana ay wax ka qaado waxba laga qaadi maayo barbari subxana wa tacaala. walow nafta ay u yeedhanaysaba ha noqoto dadkii xigaalkeeda ahaa iyo dadkii isxigeen iyo qaraabadeedii haba noqoto macna. oo maxaa dhacay hade maalinkaasi maalin la iskaalmayn kara maaha. yani laa tamliku nafsun linafsin shay-an. wax maalinkaa laysu qaban kara ma jiro. likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nun yuqnihi. ruux walba maalinkaa tiisii baa taabatayoo tiisii buu ku mashquulsan yahay. yaa wax kuu qaban kara marka? aabbaha iyo carruurtaadii iyo hooyadaa iyo walaalahaa iyo xigaalkaagii iyo nin walba tiisii baa cuslaysay. yaa kuusoo gurmanaya marka? nin gurigiisii gubanaya miyaa guri kale daminaya? maya. ti walba tiisii ku mashquulsan yahay. war hebelo war kaale culayska iga fudude anigii baa culus buu ku leey. raalli ahow. hooyo imaadi wax iga qaadi. hooyo anaaba culayskii la kicila. saas waxba la iska qaadi maayo. nafina naf wax ka qaadi mayso. adigu isku tashaal lagu leeyahay marka. saas way macna. nabiga waxa yiri sallallahu alayhi wasallam waxaad u digaysaa kuwa rabbi ka baqa maqnaansho xaal ay ku sugan yihiin ama maqnaansho xaal uu ku sugan yahay. mafcuulka ka xaale ama faacilka macnaha waxaa laga wadaa ayagoon ilaahay arkaynin kuwa ka baqaya. ilaan indhahoodu ma hayaan qalbigooda arkaya laakiin indhahoodu ma arkayaan. marka maqnaansho ahaan ayagoo ku sugan oon rabbi arkaynin kuwa ka baqa kuwa unbaa digniintaada ku intifaacayo oo salaada toosiya ruuxii isdahira oo tawxiidka isku dahira akhlaaqda wanaagsan isku dahira daacada iyo camalka saalixa isku dahira xumaanta iyo wasakhda iyo dunuubta iska dahiraayay isagoon baa iskale. fa innamaa yatazakkaa linafsihi ninna wax muusan u tarin. ilaahayna wax maadan tarin oo dee waxba ma matari karaysid. cid kalena wax maadan tarin adigun baa iskale. ama isku yeelay ama badso macna. xagga rabbi baana loo ahaan doonaa loo noqon doonaa. yaa ayuha nnaasu dadow antum idinku alfuqaraa'u kuwa baahan baa tihiin ilallahi alla xaggiisa kuwa u baahan baa tihiin. idinkaa baahidu asal idinka tahay oo alla u baahan subxaana wa tacaala. wallahu allana huwa isaga ayaa alghaniyu midka deeqtoon ah alxamiidu oo la mahadiyo. in yasha hadduu doono alla yudhibkum wuu idin tagsiin oo wuu idin baabi'in oo waya'ti wuxuu la imaanayaa markaa bikhalqin makhluuq jadiidin oo cusub. wamaa dalika kaasina ma ahaanin cala allahi alla korkiisa. dalikadu tagsiintay u noqonaysa. wamaa dalika tagsiinta iyo inuu makhluuq cusub la yimaadaay dalika arrinkaasi ma ahaanin cala allahi alla korkiisa bicasiizin mid ku adag. ma ilahay baa wax ku adag yihin subxana wa tacala. wax ku adagba ma jira. walaa taziru ma xambaarto waasiratun naf dembi xambaarsan. waasiradu waa nafta dembiga xambaarsan way macnaha. walaa taziru ma xambaarto waasiratun naf dembigeedii xambaarsani wisra ukhraa mid kale naf kale dembigeeda ma xambaarto. wain tadcu hadday yeedho tii dembiga xambaarsanayd hadday u yeedho wain tadcu hadday yeedho dheh muthqalatun naf la cusleeyey hadday yeedho oy naf kale u yeedho
maxay ugu yeedhaysaa ilaa ximlihaa rarkeedii xaggiisa hadday ugu yeedho rarkeedii saarnaa oo dembigii dusha ka saarnaa hadday ugu yeedho laa yuxmal la xambaari maayo minhu kaa xaggiisa shay-un laga xambaari maayo culayskaa saaran shay yarna laga qaadi maayo ayada unbaa xambaarsanaanaysa macnaha walow kaana haba ahaado kaa aad u yeedhanayso walow kaana haba ahaado almadcuwu wey ka loo yeedhanaya haba noqdo daa qurbaa dhowaansho mid u saaxiib qaraabtinimo dadkii ku xigay eed salay adduunka isku tiirsaneedeen isu hiilin jirteen haba ahaadeene maanta waxba isuma qaban kartaan way macnaha marka adiga iyo kistaada isku tasho oo ninna ha ku tashanin taasaa lagu leeyahay macnaha innamaa tundiru waad undigi nebi maxamedow aladiina kuwii unbaad u digi oo digniintaada wax ku qaadanaya wey yakhshawna baqa rabbahum rabbigooda ka baqa bilqaymi maqnaansho xaalo ay ku sugan yihiin oo rabbi aynan arkaynin ilaan xabuu shayga markii la arkayo hortaada uu joogo nin walba waa rumaynaya saas way macnaha hadduu hadda libaax inagu soo fakado kulligan soo ka wada baqi mayno oo maxaan u baqaynaa waan wada aragnaa sooma ama abeesiya mas inagu soo fakado shaygu marka aad hortaada ka muuqdaayo nin walba waa ka baqaa laakiin taasi ammaan ma aha wax lagu kala horeeyana ma aha laakiin ammaanta lagu kala horeeyo waxa weeye shay lagaaga warramay oodan indhahaagu haynin markaad rumaysood amarkiisa raacdood raaligelintiisa ku dadaasho taa way midda lagu kala hadhayo macnaha ama shayga muuqdaay dani walba taa waa samaynaya macnaha ayib wa aqaamuu toosiye as-salaata salaada toosiye waman tazakkaa ciddii isdahirta fainamaa yatazakkaa wuu isdahirayaa un linafsihi naftiisa darteed unbuu isu dahiraya isaga naftiisa unbay u noqonaysaa way macnaha wa ilallahi xagga allabuna almasiiru noqodkiiyo ahaanshuhu ayuu ahaado xaggiisa loo noqonaya way macnaha wamaa yastawi ma sinna alacmaa kan indhahala iyo walbasiiru ka wax arkaya waladulumaatu mugdiyada iyo walannuuru nuurkutoona mugdiyada iyo iftiinkuna ma sinna waladillu hooskii iyo walalxaruuru kii kulaylka badnaa ma sinna iyaguna wamaa yastawi ma sinna alaxyaau kuwa nool walalamwaatu iyo kuwa dhintay ina allaha alle yusmicu wuxuu wax maqashiiyaa man yashaau ciduu doono wamaa anta adiguna ma tihid binabi maxamedow bimusmicin ku wax maqashiin kara man cidda fi lqubuuri qubuurta dhexdeeda ku sugan kuwa qubuurta ku jira waxba ma maqashiin karti in anta adigu ma tihid ilaa nadiirun diga mooye wax kale ma tihid innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay bilxaqi xaq xaala aad wadato bashiiran adigoo mid bishaaraynaya wa nadiiran iyo mid digaya adiga oo bishaareeye iyo diga ah ayaanu ku dirnay wa in min ummatin ummadi ma jirto ilaa hadday jirto khalaa waxaa tegay fiihaa ummaddaa dhexdeeda nadiirun mid diga ayaa tegay oo u diga macnaha wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan oo ay ku diidaan faqad kadaba way beeniyeen aladiina kuwii min qablihim iyaga hortood ahaa ayaa beeniyey rusushoodii beeniyey jaa-athum waxaa u timid rusulhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati mucjizooyinkii cadcadaabay ula yimaadeen wa bizuburi kutubtiina waa ula yimaadeen wa bilkitaabi kitaabkiina way ula yimaadeen almuniiri ee wax ifinayay isaguna ifayey uma kadibna akhadtu waxaan qabtay buu rabbi yihi subxana wa tacaala aladiina kuwa kafaruu kufriyey fa kayfa sideebuu kaana ahaa nakiiri diidadaydii say noqotay inkiraadii aan inkiray say noqotay macna meeshan waxaa laynu garab dhigaya laysu keen garab dhigaya waxyaalo aan isku mid ahayn oo aada u kala fog ruux indhalahoo wax arkaya iyo mid indhala ma siman ma sinna jawaab iska cad ma sinna labadaas mugdiyo iyo iftiin ma siman yahay maya laba iyaguna la simi kara ma aha hoos hadhac ah oo qabow iyo mid kul badan oo hanfi ah aad u kulul ma siman yihin maya iyaguna ma sinna intaasi saynan u sinnayn ayaa waxaan u sinnayn baktiga iyo noolaha bakti mayd meel yaalla iyo noolo shaqaysanayo xoog badani ma isku mid ba isku mid maaha ujeeddada laleeyahay maxay tahay marka intaaba waxaa laga wadaa muslim iyo gaal ma sinna kuwa maydka ah hadda ka hor baynu soo baranay waa gaalada sooma liannahum amwaatu lquluub waay quluubtay bakti ka yihiin
jidhkan meesha oroordahaye wax dhisahaye yani waxa weeyaan wax hormarinahaye yani intaas wax camirahaye ha u qaadan nimanku waa bakti waman kana maytan faaxyaynaahu wajacalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman mathaluhu fi dhulumaati laysa bikhaariji minha wanagi soo marnay marka gaalku waa bakti mu'minkuna waa noolyahay labadaasi saynan u sinayn waxaa la mida waxyaalaha la soo sheegay saynan u sinayn laba la isgarab dhigi kara ama la simi kara adduunkana kuma sinna aakhirana kuma sinna indhoolaha aan indhaha lahayn waa gaalka maxaa yeelay indhihiisu waxyaalaha muuqda haba qabteene laakiin wixii ilaahay ugu talagalay maadaama aynan qabanaynin ousan uga faa'iidaysanaynin waa indhala'ya muuminkuna indhuu leeyahy dhulumaadku waa baatilka baatilkoo dhan waa wada mugdi nuurkuna waa xaq mugdiga iyo iftiinku sayna u sinayn bay xaq iyo baatilkuna u sinayn dhilligu waa hooskaa waxaa laga wadaa jannada ilaahay iyo naxariistiisa xaruurkuna waa cadaabka ilaahay iyo ciqaabtiisa labadaasina ma sinna intaasi saynan u sinayn waxaa la mida mu'minka iyo gaalku ma sinna oo gaalkuna waa bakti mu'minkuna waa xayi nool way macnaha rabbi subxaana wa tacaala markaa kadib baa wuxuu yidhi adigu alle unbaa cidduu doono wax maqashiiya oo waxaa laga wadaa samaaca qabuulin waintifaac shaygan dhegta ku dhacaya inuu qalbiga galo oo lagu intifaaco oo la aqbalo loo hogaansamo taa ilaahay unbaa bixin kara soo ma adigu laakiin awooddaada ma aha nabi maxamed haddaadee salawatu rabbi waslamu caleyh innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ninkaad jeclaata adigu ma hanuunin karti marka waxa weeyaan ina allaha yusmicu man yashaau waa maqal khaas ah waa samaac khaas ahoo waa midka uu ka dhalanayo in la aqbalo shaygii oo aad qaadato kaa ilaahay unbaa bixiya subxaana wa tacaala wamaa anta bimusmicin man fi lqubuurina waxaa laga wadaa kuwa qubuurta ku jiraay waa gaalado waa amwaad wey saas wey macnaha yani wamaa anta bimusmicin man fi lqubuuri kuwa qabriyada ku jiraay wax ma maqashiin kartid masaladaa suuratu namli baan kaga soo hadalay dadka qubuurta wax ku jiraay ma maqlaan mise ma maqlaan nusuus baa ku sugan inay wax maqlayaan xaalaadka qaarkood khaasatan inay wax maqlayaan laakiin waxaa halkan laga wadaa maqal oo dhegta ay ku dhacaysa keliya lagama wado maqal ay wax ku qaadanayaan oy u hoggaansamayaan oo ku intifaacayaan ma ka suurowdaan ya intaad xabaalaha tagto haddaad tidhaahdo war dadka xabaalaha ku jiro war ilaahay rubeeya oo macnaha waxa weeyaan maaragtay camal saalixa la imaada oo salaada tukada oo khayrka qaata miyay ka suroobi kartaa intay kaa qaataan inay ku intifaacaan ya maya saas way macnaha marka ma maqashiin kartid maqal ay ku wax ku qaataan kuwa qubuurta ku jira sida aadan mu maqashiin karin maqalkaa khaaska ayaadan gaaladan kula joogana wax u maqashiin karin saas gaaladani qubuurta kuwa ku jiray la mid qubuurta kuwa ku jiray waa laga yaabaa xaalaadka qaarkood dhaqdhawaaqa qaylada inay maqlaan laakiin waxba kuma qaadan karaan gaalkan kula joogeen ilaahay ugu talagalay inuu hanuunana dhagtiisa waa ku dhacdhacaya wax dhaqdhawaaq iyo qaylo wax la akhrinayo wax la sheegayo laakiin haba yaraatee kuma intifaacay saas laga wada macna tayib adigu ma tiid baa nabi maxamedow ma maqashiin kartid kuwaasoo inay qaataan ma keeni kartid oo ma waafajin kartid adigu hawshaadu maxay tahay waa inaad digto oo tira war cadaab baa soo socda iska jir inta way hawsha ku taal waan ku dirnay rabbi subhanahu wa ta'ala nabi maxamed oo adigoo xaq wataan ku dirnay bishaaraynaya inta ku raacda udigaya kuwa ku diido ka hor yimaada ummad kasta oo tagtayna midiga ayaa tagay oo dhexdooda loo diray ummad kasta saasay walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut ummad kasta rasuul baa loo diray rasuulkaas oo tawxiidka u geey ilaahay kaliya caabudo taaquudkana ka taga saas way macna oo ka fogaada tayib haday ku beeniyeen bala nabiga sallallahu alayhi wasallam waa lagu diiday sooma hadii lagu diiday kaliya kuma tii hadii lagu beeniyay hortaaba la beeniyay rusushii ka horeysay ummadahoodii beeniyeen rusushii baa u timid ummadahaas waxay u leeyimaadeen mucjizaad cadcad oo inay qaataan oo u hoggaansamaan ay ahayd waxay u leeyimaadeen kutubtii bay u leeyimaadeen zuburku waa jamcu zabuurkana waxa la yiraahdaa waa shayga la qoray zabara alkitaaba bal ida kataba zuburka marka waxa laga wadaa kutubtii oo dhan
وبالكتاب المنير وحا لغا ودا كتبتي أحكام تودتي سيدة التوراة إنجيل أيا لغا ودا يعني الزبر كنا وحا نقونيسا كتبتي وعدك أبضني سيدة مثلا كتاب الزبور النبي الله داود صحف إبراهيم كتبتي وعدك أبضني الزبر كالغا ودا والزبر كويسوده هسقليا وعام بالكتاب سخاصة لوعت ومن باب عطف الخاص على العام وحا لغة عربية لغوية يعني الزبر كوي قالين كتبتني لكن منان قونية لسيئة ومر لباد بالله مقعابي كتاب كمنير كان وكتبتي وويني ده أحكام تودتي سيدة توردي إنجيل وكالنت معنا كتبتي مركي أولي يمادين محاي سميه ويبينيه كدبنا الربي وحوليها وان قبتي كو كفريي وان قبتي وعقاب وان قبتي سي أهيد إنكري دي أن إنكري سي نغط إلهي سبحانه وتعالى فعل بكو إنكري وهلا قوي معنا انكراد دي سي waxay noqotay in la tirtiray oo la baabiyay wama yastawi masna al-a'ma kan indahala iyo wal basiru kan wax arkayay masna wala dhulumatu mugdiyada iyo wala nuru iftiinkuna masna wala dhillu hooska iyo wala al-haruru ash-shay'u al-harur ash-shay'u wala ash-shay'u al-haruru harurku waa fa'ul oo mubalaga ku jirta wala al-haruru kan kulaylka badan kii kulayl walal xaruuru iyo kii kulaylka badnaana ma sinna hooskii iyo kii kulaylka badnaa ma sinna ka kalwal kulaylka badan waxaa laga wadaa culimada salafku leeyihiin xaruurka yani waa dabaysha hanfiga ah ee kulul ma habeenkii kulaylka dhace ee dabaylo waxaa jira kulul oo kulayl wato ama habeenkii soo dhaca ama maalintii soo dhaca waxay culimada qaarkood kala duwayaan samuum iyo xaruur labaduba waa dabaysha kulul ee jirka masaamtiisa galay jirka maamelaha dhididku ka soo baxo iyo dulduleeladiisa galaysa la yiraahdaa labadaba laakiin labada midna ma habeenkii bay khaas ku tahay midna maalintii mise waa la wada yiraahdaa taasi waa muran culimada luqada iyo tafsiirku intuba isku khilaafsan yihiin adiga al-haruru waa kulaylkaasi hanfiga ah ee jirka galay way macna iyo hoos haraca oo aad u macaani labadaasi ma sinna wama yastawi masna al-ahyaa'u kuwa nool iyo walal amwaatu kuwa dhintay toon kuwa nool iyo kuwa dhintayna ma sinna inna allaha alla yusmi'u wuu maqashiyaa man yashaa'u ciddu doonuu maqashiyaayo waafajiyaa inay xaqa qaataan wamaa anta adigu sulmatihid bimusmicin ku maqashiin kara man cidda fil qubuuri qabriyada dhexeeda ku jira waa samaaca khaasoo maqashiin ay ka dhalanayso inay aqbalaan oo qaataan oo ku dhaqmaan oo ku intifaacaan ma maqashiin kartid kuwa quburta ku jira gaaladaana saalamida in anta adigu matid illa nadirun midigaya mooye digniin way hawshaada ee inaad waafajiso hawl ilaahi way adigu malihid inna annagu arsalnaaka waan ku dirnay nabi maxamedow bil haqqi haqq adawata ayaan ku dirnay bashiiran xalaata mid bishaaraynaya wa nadiran xalaata mid digaya ayaan ku dirnay وإن من أمة ما جرته إلا هدي جرته خلا وحاتجي فيها أمة دحذ النذير مد أدجاتي أمة كستمد أدجا والله دري وإن يكذبوك هديك بيني النبي محمد ونيون كان عربيد كبلتي كهري مادان ويكوك عصيدان فقد كذب حقيقة وحابيني الذين كويبا بيني من قبلهم إيجا فرطوطها من قبلهم إيجا كهري رسولهم بيني ومعنى فاهم بالله قليل سيء بينيين جاءتهم وحا أتمد رسولهم رسول شوديبا أتمد بالبينات المعجزات كعد عذاب إلي مادين وبالزبر كتبتي بإلي مادين وكتبت رد بركاس وبالكتاب كتبتي بإلي مادين المنير كتاب وجنسي وبالكتاب جنسي بالقوضة كتبتي بإلي مادين المنير إفيو معناها افتيميو وحيفيني عذاب بالقوضة معنى كتبتي عذاب مركا وبالزبر كتبتي يعنوي وبالكتابنا وكتبتي خاص كأهيد ووينيد وأحكام تودتي سيدة توردي إنجيل يوحل من المعنى ثم كذبنا أخذت وحن قبطي رب سبحانه وتعالى الذين كوي كفروا كفري أيان قبطي فكيف سيدابو كان أها نكيري ديددي سيحت انكيرات دي آن انكري هي ديددي آن ديدي سين نقطي والله بابا أيوه معنى والله الرقم دي ألم ترى أن الله ما دام أي سيداتهي oo kuwii hore saa rusushii markay u beeniyeen saa loola dhaqmay kuwanina taa oo kaleeto unbay mudan yihiin way macna qarka u saari hadalku marka waa hanjabaad iyo yani waciid goodi alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha alam tara miyadan arkayn anna allaha alla anzala inu soodaji min as-samaa'i haga sare ma'an bi inu ka soodaji
oo fa akhrajna aan bixinay bihi ثمرات midho aan ku bixinay midhahaasoo mukhtalifan iskhilaafsan yahay alwaanuha midabadeedu ay iskhilaafsan yihiin wa min aljibaali buuraha xaggoodana judadun ayaa ka ahaaday wa min aljibaali buuraha waxaa ka mid ah judadun yacni tubo ama wadiiqooyin kuwaasoo biidun cadcad iyo wa xumrun kuwa gudguduudan kuwa cascas kuwaasoo mukhtalifun ay iskhilaafsan yihiin alwaanuha midabadoodu iskhilaafsan yihiin wa qaraabiibu ayaa ka ahaaday jibaashi bay ku xidhantay judadun baa ka ahaaday bay ku cadfantay wa qaraabiibu kuwa dugul ah suudun oo madmadow wa qaraabiibu suudun qaraabiibka waa shayga aada u madow jamcu hirbiib waay hirbiibkana waa madowga tikhda way macnaha suudun oo madow marka wa suudun qaraabiibu saasay noqon kartaa macnaha wa min annaasi dadka xaggooda waxaa ka ahaaday iyo waddawaabi iyo daabooyinka yacni naflayda dhulka ku socota wal ancaami iyo xoolaha xaggooda mukhtalifun baa ka mida kuwa iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabkiisu uu iskhilaafsan yahay kadalika kaas hore oo kale ay ikhtilaafan iskhilaaf oo kadalika kaa hore oo kale ah inamaa yakhsha allaha alla waxa uun ka baqa min cibaadii addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin ama addoommadiisa xaggooda waxaa ka baqa alculamaa'u kuwa yaqaana isaga ina allaha alcasiizun midka qaalibka awey hafuurun oo dhaafo addoommadiisa dunuubta u dhaafo macna rabbi subxana wa tacala halkani ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa jaanib ka mid ah ayaa laynoo muujinaya ayib oo waxaa layna barayaa waxa la yidhahdaa alwaanta midabada wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala miyaadan arkaynin alla inuu xagga kore biyo ka soo dejinayo biyihiina aan ku soo saarayno midho iltifaat wey midhaan ku soo saarayna midhahaasi biyahaasi soo saareen midabadoodu waa iskhilaafsan yihin waa kala duwan yihin kula fiirso biyaha waraabiyey waa hal biya waa hal roob dhulka ay ka soo baxeenna waa hal dhul hal geed inay ku yaallaanna waaba dhici kartaa midabkiina waa kala gedisan yihin maxay taas awood waxaan isaga oo hal meel ka soo wada jeeda nooc ka dhigi karta inay jirtaad meesha ka fahmaysa shaydeedaba shayga dabeecada la yidhahdo dabeecadu wax ma kala badbedeli karto haddiiba shay la kala badbedelaya aada aragto oo la kala duduwayo awood baa meesha ku jirta aan caadi ahayn marka midhihii waa midabo buurihii markaad fiiriso buuraha xaggooda waxaad arkaysaa yacni judadun waa jamcu juddadana waxaa la yidhaahdaa wadiiqada ama waxaa la yidhaahdaa tubta yacni tubta iyo jidka buurta korkeeda mara ayaa la yidhaahdaa judadka asalkiisa la yidhahda waxaase hadda laga wadaa buurta markaad saa u fiiriso dhagaxyaanta intii isku midababa way isku aadan yihin yacni in madow baa isku daba taxan ilaa buurta kor xaggan markaad fiirisana waxaa isku daba taxan in yacni gudguduudan in cascas xagga markaad fiiriso haddana in cadcad baa isku daba taxan markaad saa u fiiriso waxaad moodaysaa wadiiqe iyo jid yaroo dhuuban oo buurta fuulahayo oo kor u socdo midabadii waa kala gedsan yahay wixii waa hal dhagax hal meel buu ku wada yaallaa dabeecadiisii waa isku mid midabkiisiina waa kala duwan yahay judadun biidun wa xumrun mukhtalifun alwaanuha isagoo guduud ah ama casaan ah baa casaankii haddana sii kala duwan yahay soo ma casaankii waa sii kala duwan yahay ilan casaankaa laftiisa intaasoo midab sii hoosgelaya mar casaankii waa adag yahay mar waa khafiif mar waa kasii hooseeya wahaakada kii laftiisa cadiinkii waa sii kala daran yahay oo isaguna mukhtalifun alwaanu isagoo hal midab ah buu haddana kala tegaya oo iskhilaafaya wa qaraabiibu suudun buurihii wadooyinkii maraya dhagaxyaantoodii waxaa ka mid a kuwa madmadow oo madowgoodu haddana tikh yahay qaraabiibku waa markuu madowgu aad u daran yahay wey macnaha saasale waa jamcu hirbiib macnaha waxa weeyaan kuwa aad u madow baa ka mid a bal midabadaas halkaa buur ah ee iskhilaafsanna fiiriya awood rabbaaniyaa ka dambaysa oo caji badan saas way macnaha dadka xaggiisa markaad fiiriso naflayda dhulka korkooda ku socota xoolihii haddaad fiiriso ayagana midabkoodii waa iskala duwan yahay sidaas oo kaleeto sida unba u kala duwan yahay bal bini aadamka adigu fiiri bini aadamkii
iyagoo hal aabe ka soo jeeda iyo hal hooyo oo hal asal ka yimid ayaa waxaad arkaysaa haddana wax isku mid ah ma jiro. bal adigu hindiga iyo yurubiyaanka iyo chinaha iyo carabka iyo afrikaanka bal adigu fiiri isku hooyo isku aabba dhashay meel bay kasoo aadam iyo xawaa wada dhalo waxaad arkaysaa. kuwii cadcasaa ee casiinka ahaa laftooda baad kala garan oo isku midab maaha. madmadowgii baa sii kala daran oo isku madowba maaha. kuwii gudguduudnaa isku guduudba maaha. midabba kala tagsan wey saas. bal waxaa laga yaabaa labada hadda hooyiya aabba wada dhaleen oo uurka wada jiifay oo mataanaha ah midna inuu cas yahay midna madow yahay soo ma. hal biyaa laga wada abuuray ogow. waa qudrad cajaa'ib ah oo cajab badan awood rabbi baa meesha ku jirta. marka waxaa layna dareensiinayaa marka laynoo jeedinayaa war bal aayaadkan hortiina ka muuqda eed mar walba arkaysaan u fiirsada oo waxaad garataan rabbiga waxaan sidan yeelay inuu awood ballaaran oo meelay ku dhammaatay uusan jirin uu leeyahay. saas daraaddeed iska jira. awooddaasi awoodaad ka hortegi kartaan ama ka baxsan kartaan ama ka fakan kartaan ama isku taagi kartaan ma iska jira baa macna oo ku cibra qaata aayaadka rabbi subxaanahu wa ta'ala. waxa aayadda loogu dambeysay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. waxa ilaahay ka baqa uun yani addoommadiisa culimada unbaa ka baqa. culimada unbaa ka baqda. xasri baa la yidhahdaayo baqdinta ilaahay culimada unbay khaas ku tahay oo cid kaleba ilaahay kama baqdo. saas iyadoo la yidhi ka dhigantay macnaha waxaa laga wadaa sida ay culimadu leeyihiin salafku يعني waxaa talaasum ka dhaxeeya oo isku xidhan oo kala go'i karin Allah khashiyadiisa iyo cilmigu. saas daradeed al-ilm huwa al-khashiyah wal-khashiyatu hiya al-ilm. saas macna labadaasi ma kala go'an. saas daradeed hadaad aragto nin wax garanaya laakiin cabsi ilaahay iyo amal uusan ku jirin caalim ma ah. waa sida ibliis wax ma garanayo amal ma laga waayo علم الله ويا لما ديكر. طيب midna khashiya ku jirto oo cabsiba ku jirto oo waa rafaadsan yahay oo waa dadaalhayayo laakiin aqoon ma laho meel ilaahay u maro ma garanayo kaana culimo ma he wajahi sama aalim ya leeyahda waxa leeyahda cidii kulmisay khashiyo iyo garasho labadaas ruuxa isugu tagtay baa culimo. kitaab ilaahay iyo sunnah nabina waa yaqaana camalkiina waa ku daray oo ilaahayna waa ka baqa dhaqan ahaanna waa u hagaagay culimo dadkaas loo yaqaan. طيب laakiin ninka soo maalmo kitaab la qamaystay been inagu culimo u naqaan mushkilada in haysato way macna hebel waxa lagu leeyahay waa culimo koox buu hogaaminaya daba socota oo daba guureys camalkiisa iyo haday isu bandhigaan wuxuu sheegayo ismale wuxuu yaqaan marka la fiiriyo waxa laga yaabaa dhowr kitaab oo fiqhi la qamaystay intiina shaqo ka dhigtay oo dadku wax kaga urursada waa culimo ilay war culimo ma culimo qanjirka moogta hilibka lagu tiriya kamidna ma ya qanjir hilibka wajir laakiin waa lagu tiriya kuwa badan culimada iskaga tirsan baa jira laakiin aan kamid ahay. caalimka waxa la doonayaa rabbaaniga inuu cilmigana ku amal faro waxna garanayo. haddii labada laga waayo ama waa jaahil ama waa culamaa usuu waa ibliis iyo inta raacsan way macna. salafka waxa ka soo ridwaanullaahi calayhim inay dhihi jireen culimadu waa saddex: caalimun billah wa bi amri illah. caalimun billahi laysa bicaalimin bi amri illah. caalimun bi amri illah laysa bicaalimin billah. waa saddexda. nin ilaahayna yaqaana ilaahay amarkiisana yaqaana sharcigii ilaahay waa yaqaana iyo jid loo maro ilaahayna waa yaqaanaayo waa ka baqa. kaasi waa culimada dhabta aayadu sheegtay. ninna caalimun billahi laysa bicaalimin bi amri illah. ilaahay waa yaqaanaayo baqdintiisa iyo cabsidiisu waa ku jirtaa laakiin jiduu u mara ma garanayo amarkii ilaahay ma yaqaan. kaa maxaa la yidhahdaa waa jaahil waa jidka oo nasaarada wey. ka saddexaadi waxa weeye caalimun bi amri illah laysa bicaalimin billah. amarka ilaahay waa yaqaana sharciga iyo diintii waa yaqaana qur'aan iyo sunna waa yaqaana laakiin ilaahay ma yaqaano oo kama cabsado. kaana waa dhaqankii yahuuda iyo culimada xunxunkee diinta ku adeegata. saddexdaas culimo lagu sheegaa hal mid baana culimada dhabta waa ninka isku darsaday
العلم بالله وبأمر الله تبارك وتعالى إلهي نوايا قانا أمر كيسي شرع كيسي نوايا قانا كاسا علماء معنا كاسا أمر إلهي كبقى أي رب الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا الشيء هذا قرني نبى سوى وقبقي بس واشا معنا هذا قرني نبى ما قرني ست هذا قرني كما بقيس ضبك هذا ما يشاس قرية حدي آذن أوجين ديك وكوك جيسني مياد سكتشري المها يركي قرقورنا يضبك وإسكاكدعي صوما محو دعيا لأن دبك سنقرني محو دب قلا محو سجودها صوما ما يقال لباح سوء دحي منك يقالهم باك عربي أما معنا واحد كحيل ليس لباح نلا نقولني بلحك رتي لازمالد لباح هذا تقال نوات كبك واك عربي لكننا نقولني لباح وحوها يصاب بصدق وكلته أنتو دوار دعوني marka sideedaba aqoonta aad garanayso waxa ka dhalanaya qadarin waxaana ka dhalanaya amal ilaahay nin yaqaana umba iska jiro ka baqa oo iska ilaaliyo way amma jaahilka ilaahay ba aan garanaynin hada ilaahay muxuu galaa muxuu gudaa muxuu awood leeyahay maxaa dibka iimaan doona uu keeni doona iqaabtiisu intay la egtaa haduusan garanaynin misee uga baqaya macna saas macna طيب alam tara miyadan ogeyn anna allah miyadan arkaynin anna allah alayhi أنزل إنه دجي من السماء السماء حقيقة ما أنبياء إنه كسو دجي فأخرجنا مركا عن بحني به ثمرات ملاء أنقصوا بحني ملاها سو مختلفا أو اسخلاف سنه ألوانها من البضوض اسخلاف سنه ومن الجبال بورها وحا كمدا جدد ذو جدد ساوي معنا يعني بورها وحا كمدا ذو جدد أما جدد طريقيه بورها وحا كمدا كوا وذيقوين إيا طبأ صاحبه طبأ صاحبه معنا بيض طبتا إيا وذيقوين كاسو بيض عدعد إيا وحمر كوا قدودا وعسعس كوا سو مختلف وإسخلاف سيها ألوانها مذبضوض وإسخلاف سيه مذبضوض ومعناها عدين كنا وإسسيك لقدسين قدود كي عسان كنا وإسسيك لقدسين معنا وغرابيب أيا كمدا غرابيب كدوغل أهو آد أمدو سود أمدو سود هو مدوغ عادقة غرابيب كنا وآد أمدو جيسو تخيهي ساسي معنا ومن الناس ذاتك وحاكم إذا والدوابي يعني نفلي ذا رولك كسعطة إيا والأنعام حولها وحاكم إذا مختلف مدو اسخلاف سينها ألوانه مدو كيسو اسخلاف سين حولها مدو بضو اسكو من معها نفلي ذا دورك كنا ولا سعطة حمارة ذا رولك حمارة نيسا وحمد بقضو اسكو من ديها مجر ذاتك كما ضرب معنا أيوك ساسي معنا طيب يعني انت هذا مساجك فرد هذه أدرك القبطان وفي رستان مد لميدا ومجر يا رضو فيرس إنسان ميدا بعد ماشي كفرد إذن كم ميدا بدين هذا في رزان كلا تكتب بل خلق كلا مخلوقات كلا وركو ذوبك هذه معنا إلهي سبحانه وتعالى قدرته عجيب ساس معنا كذلك مختلف مدو اسخلافية ألوانهم ميدا كيسو اسخلافية كذلك كاهر أو كلاتو اختلافا كذلك اسخلاف كاهر أو كلا يعني كاهر كوي وكل قدسنان تهور لصوشة أو كلا لم يدمعنا إنما يخشى وحا أنبقى الله وحا كبقى من عبادي الدومدي سحال ويكم يدهن العلماء أنبقى كمقضى علماء ورثة الأنبياء رسول كان صلوات ربي وسلامه عليه وكعديث صحيحة وكسوغيه أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا إلهي إذن كو أقانا حق عبسيدي سنة أنا إذن كو هريو إذن كو أضق بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه ومتلازمان بالليل علمك الصحيحة وحو مركب اللازم سنة يا عمل إيه خشيو أيو لازم سنة يا معنا طيب إن الله ألا عزيز متكي غالبا ويغفور أو أدومدي سؤودا بدافوي ربي سبحانه وتعالى مركب وحوي tilaabada hore waxaad ka bilowdaan inaad wax barataan oo ilaahay aad barataan oo sharcigiisa aad barataan asaaskaas wax ku asaxan saasi macna fa'lam annahu la ilaha illa allah wa utagi doona diinta asaaskeedu waa cilmi iyo barasho macna jahli ma macna innal ladina yatluna kitab allah innal ladina kuwa yatluna akhriya kitab allah kitabka ilaahay ku akhriya oo aqaamu toosiya as-salata salada toosiya oo anfaqu bihiya mimma razaqnahum waxa ku irsaqnay qaar ki bixiyay sirran si qarsoodiya iyo wacalaaniyatan si cadaana u bixiyay yarjuna waxay rajaynayaan kuwaasi tijaratan ganacsi bay rajaynayaan lan tabura tijaradaas oo lan tabura aan baaraynin liyuwaffiyahum inuu oofiya daraadeed bayna u baarayn liyuwaffiyahum inuu oofiya daraadeed ujurahum ajriyalkooda inuu oofiyo
ويزيدهم وزيادية من فضله فضله سنة وحوق زيادية ولي وحوق درب إنه ألا غفور متك دافد بدوي شكور أو شكر بدوي والذي متك أوحينا وحيونا إليك أدق أنك وحيونا ومن الكتاب كتابك هو إسقى أي الحق حقه مصدقا حاله يهمد رمينيا لما بين يديه وحي فرتيئها وكتبتها إن الله ألا بعباده أدومديسا لخبير متكي بعض أقوي بصير وأركوي ربي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى آية كتاب كيسا هو أخرية أخرين تاس وحال الصعدة راعد يعني التلاوة راعد نوال هذا وحاكلوا لي هذا أخرين مركا وانا إناد أخريدو marka labaadna dhaqan ahaan u qaadato oo noloshaadu ay isaga raacsantay kuwa ilaahay ah kitaabkiisa akhriya oo salaada toosiya waxaanu ku irsaaqnayna wax ka bixiya si qarsoodi ay si muuqataba u bixiya kuwaasi waxay rajeynayaan ganacsi aan baaraynin tijaaratan lan tabur ganacsiga aan baaraynin muxuu ganacsiga aan baaraynin waa ajirkii abaalgudka saas weeyaan ganacsiga aan kugu baaraynin oo ka baxaya ku soconaya oo ka faa'iideyso ribaxay faa'iidada aad ka helayso waa amalka saalixa ajirkii aad ka hesho ilaahay agtiisa aad ugu tagtay subhanahu wa ta'ala waxayna u baaraynin allah wuxuu ajiriyalkoodii u oofinay markaasuu hadana siyaado isaga fadligiisa aad ugu daraya marka nin intiisiina helay siyaadana helay ganacsigii miyuu khasaaray ma ku baaray ma adiga markaad alaab keensato alaabtii hadday ka baxdo lafihiina aad ka hesho siyaadana aad ka hesho miyaad ku khasaartay ma yaad faa'iido way macna marka amalkoodan iyo dadaalkoodan iyo ajirkoodan ay shaqaysanayaan isagoo siyaado oo wax wata ay helayaan badeeca ku baartay marna ma noqonayo saas rabbi subhanahu wa ta'ala sababtuna waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala waa ghafuur oo xumaanta ka dhacdayna wuu u dhaafaa shakuur weeyo adoomadiisa wanaagay la yimaadaanna wuu ka shukriyaayo waad mahadsantiin dood fiicantiin buu dhaha abaalgudna wuu ka siiyay rabbi subhanahu wa ta'ala maaha ilaahay subhanahu wa ta'ala shakuurka sifaatkiisa shukri baa kamid min sifaatihi ash-shukru shukrigu waxa weeye in ruuxii wixii uu shaqaystay la yiraahdo abaalgudkiisana la siiyo waad mahadsantahay Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa waana amaana abaalgudna waa siiya macna kitaabka aan ku waxyoonay isaga ayaa xaq kutubtii ka horeysayna uu rumaynaya uu marqaati kacay allana adoomadiisu waxay sameynayaan hoos uu og yahay kunta uu og yahay wana arkaya macna innal ladina kuwa yatluna akhriya kitab allah marka kitaabka ilaahay akhrintiisa in lagu dadaalo ya macna wax way aayadu ina baraysaayo hada wax weeyaan amal la yimaado acmaasha ugu fadba ilaahay loogu dhawaaday kamid tahay macna xaraf kasta toban ajiraad ka yeelis wax fududba xaraf kasta alif lam mim marka tiraahdo صدن أجر باكجر كلي ألف حرف ولام حرف وميم حرف بنبي صلى الله عليه وسلم مد كلمة بسنة وحكجرة طبعا أجر باكجر ننكي ما ننكي كن حرف أخري ما يقع أجر بوله يا ويران طوانكم بوله كن حرف وحالة يا بابا إنا نقطه يا waxaa laga yaabaa inay xisb noqoto ama ka yaraataba aad u yarta macnaha marka waxa layna barayaa meeshaas faa'iido weyn iyo ganacsi weyn oo doqoni ma garatay aba ku jira doqoni ma garatay dad badan ma oga saas daraadeed kama warhayaan meesha marka laga faa'iideysto leeyahay macna tayib innal ladina yatluna akhrina kitab allah ilahi kitabkiis oo aqaamu toosiyay as-salata saladatus أو أنفقوا بحية مما رزقناهم وحنكوا إرزاقنا قاركي بحية سرا سقر سودية وعلانية سمو قطبة يرجون وحي رجينيا كواسي تجارة ثوابي أشر برجينيا تجارة قنعسي برجينيا تاسو لم تبور أنباري منه أن سعر شبين سعر كودوسا شبين معنا ليوفيهم إنه أوفي درادت أجورهم أشريال كودو إنه أوفي أرم يسترون ويزيدهم إنه أكرديو درتد من فضله إنه وحو أكرديو حقي سنة إنه سيادة أقدر ربي سبحانه وتعالى إنه ألا غفور مدكي رافد بدن وشكور أو شكر بدن أو أدومدي سوغا أبال قدوحي إليه مدن والذي مدك أوحيناء وحيوني إليك أذيك أنك وحيوني ومن الكتاب كتابك وقرانك هو إساق أي الحق حقا
مصدقا حاله يهمد رمينيا لما بين يديه وحي إساق كهريي أو كتبتي هرى توردي إنجيلي وكتبتي كلام ومرقاتك عين إن الله الذي عبادي أدومدي سل خبير مدكي قن أقوي بصير أو أركي قن تودنا وأقوي وأنا أركى رب سبحانه وتعالى والله سعوده ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم كذب أورثنا وحن دحل سيني الكتاب كتابك وحن دحل سيني الذين كويبان دحل سيني اصطفينا أندورني ومن عبادنا الضمضنا ذكمت فمنهم وحكم ذا كوا ظالم مد ظلمي لنفسه نفتي سدلمي ومنهم وحكم ذا مقتصد مد دحيستي دحاب مد ومنهم وحكم ذا سابق مد هرمري والرضا إلهي يتشنأ هرمري بالخيرات خيرات كسمين يسببتت كهرمري بإذن الله إلهي إذن كيس سببتت كهرمري ذلك كاس هو إسقى أيا الفضل فضلك الكبير أوين جنات عدن واردة شنوين كودا أي يدخلونها قليان يحلون حال يعني حال قرحني يحلون والله قرحنا والله باللذين فيها جنات كدحدود waxa lagu biladeynaya oo lagu qurxinaya min asawira cinchimoyin oo min dahabin dahab ah wallu'an iyo lul ba lagu cinchimaya lagu qurxinaya walibaasuhum labiskoodi iyo dharkooduna fiiha jannada dhexdeeda xariirun xariir way waqaalu waxa yiraahdeen markay jannadii galano inta isku heleen alhamdu mahab lillahi ilahi bi usugnaat alladhi allahazu adhaba taksiyay anna haqqanaga alhazana murugti naga taksiyay إن ربنا ربنا لغفور متك ضافد بدن شكور أو شكر بدن الذي الله سو أحلنا ندتشي دار المقامة نجاديك دارتس نجانشها دارتي دي ندتشي من فضله صدرتنا نقدتشي عمل كنا ما لا يمسنا نمتابني أما لا يمسنا حرب سنتابنين فيها دارتا دحدة النصب واحد بقى ولا يمسنا أوسنتابنين فيها النار فيها دارتا دحدة لغوب دالنا أوسنتابنين ومعنى يتعب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ربي وحده سبحانه وتعالى كتاب كالقرآن كا حق أديك اللي بيقصوا دشيني محمد وحل دحل سي كوان دورني أو أضمضنا ذا كميدا إلهي دتكو دورته حل كيساه وقوة قرآن كدحل أهلوي وليبا خاصة كسي خاصني وحي علماء والعلماء ورثة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنبياء دحل كودي دتك كفر يا إيقاتي وعلماء dadka ilaahay quraanka uu dhaxal siiyay wuxuu ka dhigay kuwa uu doortay oo adoomadiisa kala baxay oo xushay xulway ninkii kitaabka ka qaday kuwa laga yimid buu ku darmaday kuwa ilaahay doortay waa kuwa kitaabkan loo xulay barashadiisa ku dhaqankiisa qaadashadiisa faafintiisa u dagaalankiisa baahintiisa wax ku bixintiisa dadkaas ilaahay u dooray kitaabkan kuwa way kuwa macnaha dhaxalkii haya kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala xushayna iyaga way macnaha ayagii baa kala baxay marka waxay u kala baxayaan saddex zalimun li nafsihi iyo muqtasidun iyo sabiqun bil khayrat bi idnillah saddexdaas ay kaliya khilaaf badan baa meeshan ku jira aayada laakiin madhabka u fiican ama ra'yiga u fiican waxa way aayada lagu fasirayo in la yiraahdo saddexduba mu'miniintay kamid yihiin saddexduba adoomada ilaahay doortay ee diinta u doortay iimaanka u doortay way ku jiraan saddexdubana waa ahlu janno laakiin way kala duwan yihiin madhabkaasi ra'yiga inay saddexduba ahlu janno yihiin ayaa waxa ku soo arooray xadiidka Abu Sa'id al-Khudri ee Imam Tirmidhi uu soo saaray Sheikh Albani saxiixiyay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam aayadan markuu akhriyay kullun bimanzilatin waahidatin wa kulluhum fil jannati ibn Nabi sallallahu alayhi wasallam kulligood saddexdan ba jannada galayaan Nabi sallallahu alayhi wasallam aayada marka khilaaf adag ba ku jira faafahin aad u far badan iyo niqaashka ku jira ninkii u baahani saddexdani ahlul iimaanka ay ku wada jiraan mise zalimun tuwa gaalka
labadan dambana waa mu'miniin muqtasidkii saabiqa khilaafkaasaa ku jira ibn al-qayyim baa si fiican uga niqaashay kitaabkiisa tariiqul hijratayn ama haddii kale badaa'icu tafsiirka hadda lagu kulmiyo tafsiirkiisa aayaddan markuu fasiraya halkaas loogu laabto ra'yiga marka raajixi xooga badan waa ra'yiga xadiidka nabigu ku tusayo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo ah saddexduba inay ahlul iimaanka yihiin saddexdubana jannada wada gelayaan saas daraaddeed baa aayaddu waxay tihi aayadda ka dambaysaay jannaatu cadnin yadkhuluunaha lama kala qaadin maxay kala yihiin marka saddexdani dhaalimun linafsii waxa weeye waa midka waajibkii loo dirayna wax ka dayacay wixii daal la yidhina iyo dembiyadii laga reebayna wax ka samaynaya waajibkii wax waa samaynaya wuu la imaanaya waxna waa dayacaya xaaraamtii ka tag la yidhi waxna waa ka tegaya waxna waa iska qasanaya kaasi waa dhaalimun linafsihi ظالم لنفسه وأهل الإيمان والروح مؤمن وتكنها يعني لكن سيبه وحكيه كاسوا مت ظالم لنفسه وأنا سيدة تقريبا لو بدين هبات متى صوبا مقتصدك وانك دحدحاتك ودحدحاتك وحا laga wadaa wixii waajib loo dirayna wuu sameeyaa waxse kuma daro waajibka wixii ka tag la yiri ee dambi ana ee dunuubta waaweynana waa ka taga laakiin waxyaalo laga fiicay iyo makruuha wuu iska sameeyaa muqtasid bala kana waa midka taqriiban macnaha kii hore waa dhaama saabiq bil khayraat ku waxa weeye waa nin waajibaadkii oo dhan gutay waliba waajibaadkiina ku daray mustahabbaadkii iyo sunnooyinkii ku daray xaaraamtiina ka tagay xaaraamta ka tagitaankeedana ku daray wixii makruuhe laga fiican yahay oo dhanna waa ka tagay kaana maxaa la yidhahdaa saabiq bil khayraat baa la yidhahdaa darajo sare way midaas inay darajo sare tahay waxaa lagu xidhay biidni illaahi baa lagu xidhay ilaahay baa taabixiya subxaana wa tacala wax sahlan ma saddexdaasi marka kale yihiin waa saddexda hadda loo qaybsanyayo dadka ahlul iimaanka u qaybsan yihin saddexdoodu say kala noqonayaan waxa weeye midkan saabiq horta dhaalim linafsihigu maalinta qiyaamada markii la tago jannada wuu ku dambayn doonaa laakiin dembiyada uu galay iyo waajibkuu dayacay ee meesha uu la tegay hadduu doono ilaahay wuu iska cafiinoo horay baa jannada laga geyn hadduu doonana alla intuu cadaabka soo mariyo laga soo gooyo yuu markaa jannada ku dambayn doonaa waa dhaalim linafsihiga muqtasidka isaga yuxaasabu xisaaban yasiiran waa la xisaabin laakiin xisaab yaro fudud oo dambigiisii in la yiraahdo war kaama gashay ha waan galay ilaahay cabsi markay gasho waa lagu cafiyay ka tag balli adduunkiina ana ku asturay hadana waan ku cafiyay balka iska jannada iska kaana waa muqtasid saabiq bil khayraatku asaga uu jannadu galaya min ghayri hisaabin wala adab isagoo la cadaabin xisaabna la marinin horay uu isaga jannada ka aaday saasay kala yihiin marka saddexduba ahlu jannada rabbi subhanahu wa ta'ala saddexda kooxood ee la kala yahay saddexdaba quraanka ilaahay dhaxalsiiyay subhanahu wa ta'ala waa dadka ahlul iimaanka ee muslimiinta way macna ayada saa inuu fasira qurux badan oo tafsiirkaas fiican xadiiskaas la rajaxaya laakiin khilaaf badan baa ku jira jannada wada galayaan jannada markay galaanna waxa lagu qurxinayaa rabbi subhanahu wa ta'ala jinjimooyin dahab ah iyo luul ayaa lagu qurxinay labiska ay jannada ku xiran yihiinna waa xariirtii jilcsanayd markay halka tagaan oo jannada galaan bay ilaahay u mahad celinayaan waxay leeyeen allah mahadsan oo amaanan allahi murugta naga tagsiyay adhaba anna alhazan qiyaamaha hadii la tago oo qabriga la aado oo qiyaamo la tago murug hadii adduunka la joogo murug wixii murug aan soo marnay allah naga tagsiyay rabbigana waa midka dunuubta dhaafa adoomada wanaaga sameeyeen ku shukriya allaha soo nadejiye daarta nagaadiga fadligiisa dartiina nagu dajiye daarta lagu nagaanayo waa jannada ma amalkaaga ku gashay iyo aqligaaga iyo aqeedadaada ma min fadlihi waaki xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaad ogaataan minna amalkiisa janno ku gali maayo markaas waxay yiraahdeen nabi allah ma adiga xataa markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam aniga xataa illa ilaahi inuu naxariistiisa igu daboolo mooyaan taas min fadlihi janno fadlihi baa lagu kala subhanahu wa ta'ala a'maashani waa iska asbaab laakiin bixinta jannada ilaahi baa iska subhanahu wa ta'ala saas tayib nataaban ma yabin la yamassuna fiha nasab jannada dhexeeda wax dhiba lama taabanayo nasabka waxa la yiraahdaa waa dhibka jirka gaadho jirka dhexdiisa jirka wax dhib oo ila shaqo ma hayo jirka jannada dhexeeda shaqo la qabanayo ma jiro oo jirka dhibaato ka soo gaadhayso
ولا يمسنا فيها لغوبنا ودال كسو غارو وي نفتا روح ذا سو غارو روح مركو شقيو كعمه يجيكنا وي دالان نفتنا وي داشا نسينا u baahda sooma labada midna gaari maayo midna taaban maayo macna hayla shaqo ma jirto meeshan cun oo cab oo seexo oo macna xaaskaagi hawsha umbaad ku mashquulsan tahay maadaama macna waxa way hawl qabanayo xagee daal iyo rafaad iyo yaani waxa way dhibka iimaanay burbur male macna tayib ثم كذب أورثنا وحن دحل سيني الكتاب كتاب قرآن وحن دحل سيني الذين كوي اصطفينا أن دورني أو من عبادنا أضمضنا ركمنا فمنهم وحكمنا كواس الظالم من ظلمي لنفسي نفتي سظلمي ودوح الظلمي حمانتي بكرعي معاصيدي بكرعي يدي بدوقلي بدل قبل لها ومنهم وحكمنا مقتصد مدحدحاده مدحدحاده دحدياله ظالم كينا أنا هين سابقين أنا هين ولكن دحد جوجا مقتصد من دحدحيستيو واجبات كينا غوتي حمانتينا كتي يعني دنبيدينا كتي ومنهم وحكم السابق مظهر مري بالخيرات خيرات كي وسمينه سببتودا كهر مري باذن الله اله اذن كيس كاسنا واكم ذلك مدكاس او هرمركا اما ذلك بحل سينتي كتاب اي الدورشدي كل اسكو دوض اي هرمرك ذلك كاسي هو إسقى أيا الفضل فضلك الكبير وين نين حوله هلي فضل وين ما يست نين عافمان هيستنا فضل وين معه نين الدنيا اللي ديما كرسي اللي ديما فضل وين معه لكن فضلك وين حاجة كتيرة وحي كتيرة إلهي إنه قوة كتابك ودرتك ودرسك فضل وكع يولاك معنا جنات عدن واردة شنوين كذا أي يدخلونها قليا يحلون والله قرحين فيها جنات كدحدودا waxa lagu qurxinay lagu biladeynaya min asawira chinchimo oo min dahab ah waaki hadiisku nabigu ahaa tablughu alhilyatu min almu'mini haythu yablughu alwudu mu'minka yani waxa lagu qurxinayo waxay gaadhaysaa meesha weysadu gaari jirtay يعني ويسدا ماشي كا غادا معناها waxa weeyaa bilada iyo shayga lagu qurxinay luulka iyo dahabka iyo lagu gaarsinay walibaasum labiskoodiya dharkooduna fiha jannada dhexdooda xariir way waqalu waxay yiraahdeen alhamdu mahadillah ilahi wa usnaatay alladhi allah soo adhaba taksi anna hagganaga alhazana murugta naga taksi hazana murugta naga taksi inna rabbana rabbigana laghafurun midkii dhaafid badan way shakurun oo shukrin badan alladhi allah soo ahallana nadajiyay دار المقامة نجانشها دارتنا من فضله فضله سدرتي نقدتي لا يمصنا نمتع بنيو فيها دار تدحليدا نصب وحد بقى شقاء يقلب شدك نجسو قاعد يسمج ولا يمصنا نمتع بنيو فيها دار تدحليدا نقطع بنيو اللغوب دال أي نفط الندو داشو نفتي أي معنى وحوي تورد حيال الشقاء بنتين بقى والذين كوا كفروا كفري لهم وحاوسنا للنار جهنم النار تراوسنا لا يقضى لما حكميو عليهم كركود او فيموتوا اي دنتان ولا يخفف لما نفضديو عنهم ايغا حقودا من عذابها عذاب كده حقيسا wax laga fududay kadalika sidaas oo kale ayaanu najzi ku abaal marina kull kafurin mid kufrin badan kulli wahum ayaw yastarikhuna way qaylinayaan fiha nar tadxeeday ku qaylinayaan waxay oranayaan ربنا ربنا أخرجنا نبحي أو نجسر نعمل أن سمينا صالحا عمل ونكسن غير الذي كيمدان هين كنا أنه نعمل كوسمي أولم نعمركم بالأرني أولم نعمركم ميانا إذن عمر سنين ما عمر ميانا إذن سنين يتذكر ورقاته فيه تحديث من تذكر عدي ورقاته عمري نينكي وانسمي وكوان سمي يجاني سومانا إذن سين أو وجاءكم صائدين ما إيمان النذير دقيه صائدين ما إيمان فذوقوا الردمية عذاب كالردمية فما للظالمين ظالمين تأمسقنا للمانت من نصير مدوهيلية إن الله ألا عالم غيب السماوات سماوات كوحكم مدك أقوي والأرض يدلك إنه ألا عليم مدك أغان شبدا ويبذات الصدور الله حالة صاحبك حديثك أهل الإيمان كإله كتابك أدوري la sheegay abaalgudka ilayhiin oo jannada ah waxa lagu xijiyay kuwii ilaahay kitaabkiisa diiday oo barasho u diiday oo dhaqan u diiday oo ka hor yimid kuwaas oo magacooda kaafiriin la yiraahdo ayagu naarta jahannam ay abaalgud u leeyihiin la xukumi maayo naarta jahannam markay galaan inta la xukumo dhiman maayaan dhimasho ma jirto
ficlan waxay ku dhiman lahaayeen waa haystaa laakiin inay dhintaan loo ogolaan maayo muxuu ahaa wayatihim almawtu min kulli makaan meel kastoo sabab kastoo lagu dhiman karay way hayaan laakiin haddana ma dhimanayaan ilaa dhimashadana sideeda waa wax ilaahay gacanta ku haya hadda adiga ama dhimasho ku talagalay ama yaadan ku talagelin haddaad dab isku tuurto soo unu dhiman maysa waadun dhiman laakiin iyaga dab iyo wax ka daranba waa ku jiraan laakiin inay dhintaan looma ogola waa noolaanayaan marka waa silix laa yamuutu fiiha walaa yaxya nololna ma noola dhimashana looma ogola silix wey marka silix ku nolol lagana fududayn maayo cadaabka qaar ka mida laga fududayn maayo abaalgudkaana waxaa loogu abaalgudaa mid kasta oo kufrin badan naarta dhexdeeday calaacalayaan oo qaydiyayaan waxay leeyihiin rabbiganow naarta naga saar haddaanu soo hagaajinayna nacmal saalixan wanaag baanu soo samaynaynaa hayra aladii kunaa nacmal kii aanu samaynaynay ku ka gedisan baanu hadda samaynaynaa tawxiidkii kufrigii tawxiid baan ku bedelaynaa xumaantii wanaag baan ku bedelaynaa akhlaaq xumadii akhlaaq wanaag baan ku bedelaynaa ilaahow sida noo dhanbay leey naga saar bay leey hadduu alla ogsoon yahay in ay uun isbedelayaan waa kan soo marnay walow rudduu lacaaduu lima nuhuu canhu haddii la soo celin lahaa meeshuun bay ka wadi lahay haba yaraatee wax isbedela ma yimaadeen macnaha rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacala markuu yidhahdaa hana la celiyo awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar waja'akum annadiir war miyaan laydin cimri siinin cimri aad ku waana qaatataanoo ninkii inuu waansamo doonayo uu ku waansamo cimrigaasi maxaa laga wadaa culimmada ninbas war buu sheegay 17 sano miya 20 sano miya 40 sano miya ra'yiga ugu fiicani waxa weeye 60 sano wey ra'yiga u fiicani waa 60 sano xadiidka saxiix al-bukhari oo ku yaalana ku tusayo nabigeenu uu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidka abu hurayra ayaa laga warinaya bukhari iyo qeyrkii baana soo saaray laqad a'dara allah ta'ala ila 'abdin ahyaahu hatta balagha 60 aw 70 sana ilaahay cudurdaar waa u dhamaystiray adoon uu daayay oo nooleeyay ilaa uu 60 sano gaadhay ama 70 sano gaadhay wax cudurdaar u laaban ma jiro saasa xadiiska nabiga ku sugan cimrigani marka adigu 60 jir hadaad gaadho ilaahay agtiisa waxaad ku marmarsooto ma haysatid hasaas marka dib ha noloo celiyo soo jaanis hore laydin ma siinin maxaad uga faa'iideysan weydeen way jaaniskii Soomaaliland dayacin bas waana ummadda islaamka cimrigeeda cimru qaalibkeeda way 60 ka sano ummadda islaamka nabi maxamed ummadiisa cimrigooda qaalibkaasay u badan yihiin cimrigoodu 60 ma dhaaf 60 ilaa 70 saas macna waa ka xadiiska Abu Hurayra nabigu ku yiri Tirmidhi iyo Maaja ay soo saareen saxiixa a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika wa nabi sallallahu alayhi wasallam ummadayda cimrigeedu waa inta u dhaxaysa 60 ilaa 70 inta 70 dhaafaysana waa in yarbu nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam saas macna adiga marka hadiiba aad waqtiyada ku dhawaato maxaa ku laaban soo inaad masaajid gasho ma xilligeedu jiraan hadda salaada ila taaga waqtigeedii baad joogto adigoo da'daasa wax ku laaban oo hadda u sii foofto iyo adduunyo iyo tabac iyo fisqi iyo kuma laaban saas macna waxa si qariib ah hadda waayahan dam waaba ku ugu daran 60 jirku wax la yaabo abaladu arag kuwa meeshan fadhiya siyaasiyiin baan ma ku hay intay dhul iyo dadba cuneen haddana in yaro cabsiya ayna ku jirin waa wada 60 jir habro 60 jir iyo oday wada 60 jir ah haba yaraatay qalbigoodana in yaro dankasha kuma jirto Soomaali waa waqti aad u liito waqti halis marka waxa taa dheer waxa lagu leeyahay horta jaanis hore leedin siiyay talabaad weeye waja'akum an-nadhiru midkii digayna soo idin ma iman digahaasi iradana waa lagu fasiray rasuulkana waa lagu fasiray in rasuulka lagu fasiraa fiican sidii ibn kathir alayhi rahmatullahi uu rajaxay iyo ibn jarir iyo saasa fiican waja'akum an-nadhiru risaaladiina way idin timid waqti iyo jaanisna waa leedin siiyay hada maxaa idin laaban marka maxaa maanta kuma marsoon karto macna rabbi subhanahu wa ta'ala marka wuxuu ku leeyahay dhadhamiya cadaabka kuwa zaalimiinta wax u hiliya maanta ma lehe rabbi subhanahu wa ta'ala samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda waxa ku qarsoon buu og yahay iska wadaafa hatta laabta xaaladda u saaxiibka midkii u ogaansho badan way xaaladda waxaan wali ka soo bixino qalbigu ku sheekaysanayo laabta wali ku qarsoon ilaahay waa ka warhaya subhanahu wa ta'ala walladina kuwa kafaru kufri
lahum waxaa u sugnaaday naaru jahannama naarteeda u sugnaaday laa yuqdaa lama xukumayo calayhim korkooda la xukumi maayo bilmowti wey geeri lagu xukumi maayo oo fayamuutuu ay dhintaan taas maya walaa yukhafafu lana fududayn maayo canhum xaggooda min cadaabiha cadaabkeeda xaggiisa laga fududayn maayo min cadaabiha cadaabkeeda qaarkii mintaada tabciidiya ka dhigto kadalika sidaasaanu najzi ku abaalmarinaa kulla kafuurin mid kufrin badan kulligii saa unbaa la mariya halkaa unbaa la marin wey macna wahum iyagu yastarikuuna way qaylinayaan fiihaa naarta dhexeeday ku qaylinayaan jahannamo dhexeeday ku qaylinayaan oo maxay leeyihin rabbanaa rabbigana akhrijnaa naga saar nacmal aanu samayne saalixan camal wanaagsan hayra aladii kii aan ahayn kunna aanu ahayn nacmalu kuwa sameey kii mid ka gedisan baanu hadda samaynaynaa awalam nucamirkum waa jawaabtii la sii awalam nucamirkum soomaanaan idin cimri siinin maa cimri soomaanaan idin siinin yatadakaru uu waansamo fiihi cimrigaa dhexdiisa man tadakara ciddii waansamayso waana ujeeda ninkii waana qaadan lahaa wakhti ku filan soomaanaan siinin oo wajaa'akum soo idinma imaanin annadiiru kii digayey oo rasuulkii ana soo idinma imaanin maxaad ku marmarsoonaysaanoo maanta aad sheegaysaan faduuquu dhadhamiya marka famaa lilaalimiina aalimiinta uma sugnaanin min nasiirin cid u hiilisa uma sugnaaninoo maanta wax loo qaban maayo ina allaha alle caalimu haybi samaawaati samaawaadka caalimu haybi samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka waxa ku maqanee cilmigiisu qarsoon yahay midka og wey rabbi subxana wa tacaala innahu isagu caliimun midkii ogaansho badan wey bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka ku jirta ilahay ogsoonyahy subxana wa tacala huwa alle alladii midka way khalaqakum jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa kuwa isaga khaliif ah fil ardi dhulka dhexdiisa yacni khalaa'ifa kuwa isaga dambeeya fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa isaga dambeeya alla midka idinka yeelay wey faman kafara ciddii kufrida facalayhi korkiisa unbuu ahaaday kufruhu kufrintiisu walaa yaziidu ma kordhiyo alkaafiriina gaalada kufruhum kufrigoodu uma kordhiyo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ilaa maqtan cadho mooye walaa yaziidu ma kordhiyo alkaafiriina gaalada kufruhum kufrigoodu uma kordhiyo ilaa khasaaran khasaaro mooye wax kale uma kordhiyo qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow ara'aytum bal warrama shurakaa'akum bal ka warrama ilaahiyadiinna aad ilaahay wax la wadaajiseen aladiina kuwaasoo tadcuuna aad baryaysaan min duuni illaahi alla ka sokaya caabudaysaan aruunii bal itusa maadaa maxay bay khalaquu abuureen min alardi dhulka xaggiisa maxay ka abuureen am amase lahuma waxaa u sugnaaday shirkun wadaagid ayay fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ugu sugnaaday ma wadaagid bay samaawaadka dhexdooda ku leeyihin am amase aataynaahuma waxaanu siinay kitaaban kitaab baanu siinay oo fahum iyagu calaa bayinatin xujacad korkeed bay ku sugan yihiin oo minhu kitaabka ka ahaatay bal iskaba dhaaf waxaasoo dhan ma jire in yacidu ma yaboohayaan aldaalimuuna daalimiintu ma yaboohayaan bacduhum qaarkood ma yaboohayo bacdan qaarka kale uma yaboohayo ilaa guruuran kada mooye waa uun isa sirayaano been bay isu sheegayaan way macna allah subxaana wa tacala waa midka idinka yeelay kuwa dhulka u kala dambeeya kala dambaynta waxaa laga wadaa qolaad tegaysa qolaa ka dambaynaysa qoladan joogtana way tegaysaa qolo kale u banaynaya waa saas innaga hadda meeshan aynu joogno dhulkan aynu degannahay kuwaa inooga horreeyey soo maha kuwii baynu ka dhaxalla uga dambaynaa innagana waynu ka tegiyo kuwaa inooga dambayn doona kuwaana kuwa unbaa uga dambayn doona khalaa'ifa fi lardi dhulkan aynu ku hardamayno ee aynu leeyahay annagaa iska leh magaalo heble annagaa leh degma heble annagaa iska leh tuule heble annagaa daaqna ma lihidin yaa idin siiye markaad leedihiin annagaa leh ya aaway subarloogada ilaahay aad ka wadataan aaway xagee laydinku siiyey waa su-aale soo isweydiin ma leh xoolaha annagaa daaqa kuma mulkin kartaan annagaa degnana kuma mulkin kartaan hortiin baa la degi jiray ilaahay subxaana wa tacaala dhulkan khalqigaas uu abuuray intifaacso beertaadiiyo gurigaagaad ku leedahay waad ka tegi waa lagaaga dambayn saasaa loo kala dambaynayaa ilaa marka ugu dambaysa ilahay gabagabeeye subxaana wa tacaala ciddii kufridoo dhulka korkiisa kufri ku samaysaay isaga unbay kusoo noqon kaafiriintana kufrigoodu waxaan ilaahay agtiisa cadho ahayn uga siyaadin maayo ilaahay agtiisa cadho unba uga siyaaday markastoy kufriga kusii fogaadaanba ilaahay cadho unbay kasii siyaadsanayaan kaafiriinta mar labaad baa lagu noqda waxaa la yidhi kufrigoodu khasaaro waxaanan u faa'iidayn maayo way uun ku khasaariyo mar kastoy sii galaan oo sii fogaadaanba khasaarahoodaa sii siyaadaya macnaha waxaa dhadaa nebi maxamedow bal ka warrama ara'aytum bal ii warrama le ara'aytum bal warrama
waxaad ka warantaan shurakadan kuwan ilaahay aad wax ugu darteen eed alla ka sako baryaysaan bal intusa dhulka dhexdiisa maxay abuureen maada khalaqu min al-ard dhulka xaqiisa maxay ka abuureen ma geedahay abuureen ma buurahay abuureen maxay abuureen bal sheega hal shay abuureen sheeg ma sheegi karta ma hal shay min abuur am lahum shirkun fi samawat mis samawat ka saray wadaag kuleeyihiin oo ilaahay la wadaagaan taana waxay dhahayaan ma la wadaagaan maxaa soo haray marka am aataynahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu mis kitaban musinayo u soo dajinayo kitaabkaasa xujo cad bay haystaan oo kitaabka ka timid oo u sheegaysa ilaahay baa wax la wadaagay ilaahay qeyrka caabuda xujada ma hayaan ka timid kitaab aan soo dajinay oo shirkigan sheegayso u tilmaamaysa inay saa ilaahay shirki ugu sameeyaan kitaabkaana lama hayo kutubta ilaahay soo dajiyo dhan waxay leedahay ilaahay keligii baryo caabuda hal kitaab oo yiri ilaahay khalqigiisa wax la wadaajiyo ma jiro xujadaana ma hayaan maxaa soo haray marka waxa soo haray inay yihiin niman iska xoogsanahayo oo zaalimiin ah hadday zaalimiin noqdeenna zaalimiinta qaarkood qaarka kale waxay u yaboohayaan kado been baa la isu sheegay been waxa la isu hayaa waa la isasiraya yani haadaan baa la isaga tilmaamsanaya shirqool baa la isu hayaa meesha lagu hayaa marka lagu leeyahay ha waxtar baa jira awowiyaynu ka soo gaarnay ha weligan dhaqan soo jiray buu haseebu khalad ku noqon karaa يعني waxa ilaahay agdiisa wax ka tarahayaan maxay iyagu kuwani ka ogyihiin ka hor imaanaya waxa la isku akhriyo ma jeeda waa guruur waa waxaan jirin dabin been ama la isaga boodahaya saas waxana isu yani wax weeyaan isu yaboohayaan oo waxba la inoo qabano kuwana wax qabano waa wax tar oo aakhari wax weyn hayaan oo adduunka iyaga wax keeno waxan oo dhan waa been aan sallahayn oo isku kadinayaan way macna kuwa ogo kuwa kale ku siraya waa qolo dabinay qolo dhigatay way macna tayib inta badan qolada madaxda iyo culimada iyo yani wax way kuwa hogaamiyaasha kuwaasa dabinka dhiga dadweynuhuna way ugu daataan sida uga dhaqaleeto way ugu daataan isagu dambu leeyahay madaxnimadiisa kursigu ilaashanay wadaadkani waxoogagiisu urursanaya siyaaradiisu qaata laakiin dabinkan uu dhigay oo diintii dadka kaga leexinayo ee dadku ku daadanayaan hada wax weeyaan waa kado oo barita markay iyagoo moodaya inay waxelayaan tagaan ba waxay u tagi doonaan meeshii eber oo maxaad shaqaysatay macna saas huwa alladhi midka yaj'alakum idinka yeelay khalaa'ifa kuwa u kala dambeeya kuwa isaga dambeeya ama isaga khaliifa fil ardi lulka dhaxdiis faman kafara idi kufrida فعليه كركيس أبو هذا كفره كفرجيس ولا يزيد ما كرنا الكافرين كافرين كفر قد وكرن مايو عند ربهم قد أكتز إلا مقتا عرموي ولا يزيد ما كرنا الكافرين كافرين وكرن مايو كفرهم قد إلا خسارا مايو وحكنا وكرن مايو قل وحبذا النبي محمد أرأيتم بل كورما شركاءكم شركدين بل كورما كون هذا الله وحلو ذا جسين الذين كواسوا تدعون أضريزا من دون الله ألك سكو أروني إتصا ماذا محيب خلقوا أبورين من الأرض دولك حقي زمعيك أبورين وح أبور ما كله مايا ويغير يندالبتد أم سلهم وحا أصغنا ذا الشرك وذاجد في السماوات كدحو ذميه وذا كليهن وإله إلا وذاك شركا ميلي مايو أم سآتيناهم وحا نصينا كتابا نصينا أو فهم إيو على بينة حجعت كركذي كسوغيهن أو منه كتاب حقي زكاة كتاب حجعت oo sheegaysa shirkigani inuu sax yahay miyahayaan maya way macna in shirkiga samaystaan xujo sheegaysa mid bal iskaba dhaafay in yacidu mayabo hayaan adh-dhalimuuna mushrikiintu ba'dhum qarkood ba'dan qarka kale uma yabo hayo illa ghururan kadab mooy way inuu sasirayaan oo kada iyo waxa jirin bay soo yabo hayaan way macna waa arkaysan malaha safxa kastoon marnaba tawxiidku kama marna safxa kasta oo aan marayno tawxiidki waa in la sheego maxay yeelay diintan asaaskeedu inuu tawxiid yahay garanaysan laga daali maayo waa in lagu soo noqdo sidaan looga daalayno quraanku uga daalin baan anaguna uga daalayn munaasabad walba in la baraarujiyo u baahantay tawxiidka maxay yeelay tawxiidku waa meesha lagu kala baxayo tawxiidka waa midka keena ama naar inaad ku abaado hadaa dayacdood halayso ama ka khaldamo ama inaad janno ku waarto haduu ku saamo wixii kale oo dhan waa wax macna laga kaban karo laakiin halka lagama kaban karayo halkaas lagama kaban karo waa la garan kartaa quraanka ku celcelintiisu inaysan caadi ahayn
markasta oo waxoogaa sheekada dhan kale laynoogu dhigo oo waxoogaa kale laynooga warramo ama axkaam laga warramo ama arrimo kale laga warramo tawxiidkii baa dib laynoogu celinaya saas way macnaha marka inay qalbigeenna ku xididaystaan la doonayaa oo aynu kelimadaa ku dhimanno macnaha ina allaha alla yumsiku wuu hayaa alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka ayuu hayaa an tazuulaa inay zuulaan buu ka hayaa walain zaalataa hadday zuulaan in amsakahumaa ma hayn karo min axadin cidina ma hayn karto min bacdihi isaga gadaashiisa innahu alle kaana wuxuu ahaaday xaliiman midkii dulqaad badan hafuuran oo dhaafis badan wa aqsamuu way dhaarteen gaaladii billaahi ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda tabartay lahayd dhaarahooda intay tabar lahayd iyo taag ayay ku dhaarteen waxay ku dhaarteen lain jaa'ahum hadduu u yimaado nadiirun mid digaya oo digaa ah layakuunanna walle inay ahaan oo ahaan ahdaa kuwa ka hanuun badan min ixda alumami ummadihii tegay middood waa middii ugu sidatay ummadihii horee tegay middii ugu sidatay baanu ka fiicnaan way macnaha falamaa goortii jaa'ahum uu yimid nadiirun mid digaya markuu u yimid maa zaadahu uma kordhinin ilaa nufuuran carar mooye imaanshihii waxay ka qaadeen un carar iyo inay isdidaan oo sii cararaan maxay u cararayaan istikbaaran iskibrin daraaddeed fil ardi dhulka dhexdiisa ay isku kibrinayaan iyo wa makra sayi'i dhagarfal xun dartii dhagarfal shirqool iyo dhagarfal xun saa waa la dhihi karaayo waxay markaa noqonaysaa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha waxaa kaloo dhihi karaa wa makra sayi'i shay xun makrifalkii dartii wa makra shayi asayi saana waa la dhihi karaa macnaha shay xun makrifal ay makrifalayaan dartiina saa way u yeelayaan walaa yaxiiqu ma haleelo ama ma hareereeyo almakru makrifalkii iyo dhagarfalkii asayiu ee xumaa ilaa biahlihi ahalkiisa mooye cid kaleeto ma haleelo fahal yanduruuna miyay sugayaan ilaa sunnata alawaliina kuwii hore jidkoodii mooye falan tajida heli maysid lisunnati illahi ilaahay jidkiisa tabdiilan bedelid u heli maysid walan tajida heli maysid lisunnati illahi alla sunnadiisa taxwiilan wareejin u heli maysid in la wareejiyo oo wejigeeda laga wareejiyo heli maysid macnaha allah subxaana wa tacaala samaawaadka dhulalka isaga haya inay zuulaan oo tirtirmaan buu ka hayaa hadday tirtirmaanna cid aan isaga ahaynoo hayn karta ma jirto waxay leeyihin culimmadu aayaddii hore munaasabaday la leedahay waxa weeye shirkigan ay samaynayaan iyo xumaantan iyo dembiyada aan ku kacaynaay waxay ka dhalan karaa waxay keeni kartaa sida ay samaawaadka iyo dhulalku uga xun yihiin inayba baaba'aan aayad macnahaasoo kalena waxaan kusoo marnay suuratu maryam baan kusoo marnay takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru ljibaalu haddaa dhulkii cirkii inuu falfalliidhmo dhulkii dildillaaco buurihii ay burburaan bay sigayaan limaada an dacaw lilraxmaani walada macaasida bini aadamku gelayo dhulku waa ka xun yahay samaawaadkuna waa ka xun yahay haddii aan ilaahay haynta uu haya ayna jiri lahaynna waaba baabi'i lahaayeenba xumaanteen iyo dembigeenna culayskiisay la baabi'i lahaayeen laakiin yaa haya ilaahay baa haya subxana wa tacaala hadduu baaba'aanoy tagaanna ilaahay unbaa hayn karay awooddiisi iyo qudradiisu ilahay ku haya subxana wa tacaala marka dunuubteennu wax saalan maaha waa ka xadiiska nabiga sal alay wasalam odhanaya yani ruuxa xun markuu dhinto waa laga raaxaystaa mustaraax wa mustaraaxun minhu mustariixun wa mustaraaxun minhu waxaa ka raaxaysta dhulka buurahaa ka raaxaysta khalqigiiyo samaawaadka ka raaxaysta malaa'igtaa ka raaxaysta urkiisii uu dhulka la kurjoogay macaasidiisii khalqiga o dhan baa ka raaxaysta saas marka waxaanaan gelaynahay xataa jamaadaadka waa dhibaya laakiin inagii dareenka lahayn inama dhibayo waa cajiib rabbi wuxuu leeyahay waxay ku dhaarteen dhaartoodii ugu adkaydee kama dambaystahayd waxay ku dhaarteen hadduu u yimaado rasuul u digaya inay noqonayaan ummadihii hore midii ugu fiicnay ixdal umam waxaa laga wadaa ummadihii hore kutubtu u timid ee rususha loo soo diray midii ugu sidatay xagga raacidda rususha iyo rumayntooda midii ugu sidatay baanu noqonaynaa saasay ku dhaarteen dhaar kama dambaysta markuu u yimid rasuulkii ay silayeen ee u digahayay maxay noqdeen maa zaadahum ilaa nufuuran carar iyo didmoon bay ka qaadeen beeshii ay ballantay qaadeen iyo dhaartoodii iyo waxba kama jir saas way macnaha maxay u carareenoo xaqa uga carareen iyo rasuulka iskibrin daraaddeed dhulka dhexdiisa ay isku kibrinayaan istikbaaran fi lard odayaashii abulahab iyo abujahli
مويل كان شليتو أقولك أهبا راعينا منه أنا قو أضياشي أضياشي أنا قو صلاة دينتي وقاسيدي ميان ويل يرو شليتو أقول أهبا راعينا ميان ونقول الله استكبارا في الأرض سلويني ومكر السيء شرقال حن ويخلقك انت سكال أولغيه ومحو شرقال كاسينها وحو أها ددوينها الأضياشة أي أيهين يسان إذن كهوسبح وإنما رحك ليالان إنه محمد يوسر إذن كحيسان تانوى مكر السيء وشرقال نفتو ذوحي كتشري أديدين استكبارا في الأرض لا وضع سيسكدر صدين ربي وحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله شرقال كحن يبقر فالكحني ددكي سأنبو كدعا وحو حليلاء روحي سميي ساسي معنا طيب مركا يعني خيانة هداد أديقا ملكتو أديقا بيكو قدام بيني قد خيانة قدي هداد قدنا هديريني إنا تكون لعبة موجود صوما بل إنا تكون لعبة وبضنت مركا سيدة يدابا مكرقا إيا بغيقا إيا حد قذبكو روحي سميي أنبو مركا دنبي لك عايو بابي إياه ufiirso odayaashii sidaa sameeyay nabi maxamed ka hor yimid dadweynahanna makriga u sameeyay soo iyaga dib ugu ma soo noqon hawa baabeen waa tirtirmeen waa la tirtiray makrigoodii ay sameeyeen iyaga uu dib u cunay wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli sirta iyo shirqoolka iyo laqdabada iyo waxan ka data iska damar khaasatan dadka ahlul iimaanka hadaad laqdabayso adiga bay ugu soo noqon saasi macna ilaahi baa ilaalinaya subhanahu wa ta'ala miyay sugayaan rabbi subhanahu wa ta'ala kuwa iyaga ka horeeyay jidkii lagu la dhaqmay mooyaan jidka ilaahay ummadii hore uu kula dhaqmi jiray bedelid u helimays wareejina u helimays bedelid waa in meesha laga saaraba wareejinta iyo taxwiilkana waxa weeye qoladii mudnayd inta laga wareejiyo qolo kale lagu wareejiyo ama wajigiisi inta laga wareejiyo waji kale in loo yeelo ma dhici karto mana bedelmayo mana wareegayo jidku waa sidii hadii rusushii xaq la diido oo tawxiidka la diido Allah subhanahu wa ta'ala waa argoosanay dhagarta iyo shirqoolka midka sameeynaya isaga ku dhacaya sidaasay sunnada iyo dariiqadu ku soo socotay wax iska bedelayna ma jiro ismana bedelayso saasa macnaha leeyahay inna allaha alla yumsiku haya as-samawati samawaatka ayuha qudradiisi awoodiisu ku haya iyo wal arda dhulka anta zula inay zulaan ay baaba'aan ay tirmaan ayuu ka haya Allah subhanahu wa ta'ala wala in zalata haday zulana إن أمسكهما ما هينكروا من أحد عيدنا ما هينكرتم من بعدي ألا كسكوا سبحانه وتعالى ما عيد با قبان كرت سواء هذا هذين وصل على عالم كردن يسوتوا ما قبان كرا يا ملك المليار هذول كفكروا مين يسك قبان كرا ما يكمل فوق ما قبان كرا بل المساجد كان هذين أنت يطلع يوسف دنتو وين بخبختي مويان واحد قبل ما جت ما عيد با هينكرت ما هينكرت صاصي معنا قدرة إلهي بايسا سبحانه وتعالى سأصل معنا مقوله إن أمسكهما من أحد من بعدي إنه أن كان وحو هذا حليما متكي دلقات بدن غفورا أو دافس بدن وأقسموا ويدارتين بالله إلهي بيكو دارتين ورمك عرفتي أقسموا بالله الله يكو دارتين جهد أيمانهم داره هذا انتي تاق ليهم انتي تاق يتبر داري ليه يمرين ما حيكو دارتين لئن جاءهم هدو يمادو النذير مدقيا حق إله هدو يمادو لا يكونن ولا إني أهان أو أهان أهداك وكهنون بدن من إحدى الأمم أمده تغي مدود إحدى المدود لكن ومدي أغسدتي أغفي عنيدو اسكتنا كوا كلام مدة أغفي عن بانكسي في عنانا نابده لكن بالرسول هنا الله صدر أساسي ليجنا انت نيم حمد الله صدرين أي وركا هين معنا فلما قلت جاءهم أوي النذير مدقى يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم ومزياد من إيمان شهيسو إلا نفورا عرر موية وحكا ومزياد ددمو ماشي مركي هورتشوغن بيبدامينو ويكسي ديدانو وكسي فوقادينو معنا محاي فوقادينو قددين محاي ديدي استكبارا اسكبرين درادات بيقددين في الأرض دولك دحديسا أي اسكو كبريان واسكو وينيان درتين إيه ومكر السيء شيح مكر فلقي درتي شيح أما ومكر السيء إيه يعني دقرح درادات دقرح إيه مكر فلح درادي أي إيالا ولا يحيق مهلينه أما موكم يعني مهريريه المكر مكر فلك إيه دقر فلك السيء آحني إلا بأهله ددكي سي سمايي مويه عيد كلام مهلينه أيها أنبو كسوة نغني ومعنى فهل ينظرون ميسوغ ينكوني إلا سنة الأولين كوي هرتشدكو دي إلهي كلابك ميموي
فلن تجد هلي ميزد لسنة الله ألا ودديسا وأمرها كل رغماي تبديلا بدليد هلي ميزد لما بدلي كرو ولن تجد هلي ميزد لسنة الله ألا تشدكيسا إيا وضيقضا وكل رغم أمرها إيا عادة وكل رغماي هلي ميزد تحويلا وريتشن وجهي لغا وريتشيو سكر اللو بدلاي ما هلي سيدو معنا. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.